kale qof kastoo garweyn wadaad hamoodin ama sheekh hamoodin lagala tago ordo dambe haddaad soo tiraahid oo muslimka dambe afka aad la soo gashid yaa waxaad iga heshid waxba iga siin CV-gaaga oo dhan hal u firdhina tahay oday edab daranaad tahay nin dhaqan laheenaad tahay nin ummadaha isqaba dabagalo shumiskooda iyo maxaa la dhahay inay iswaxeeyeen iyo inay micnaha sariirtooda xalay maxay ku suubiyeen iyo intee la maraayay daba wareegaa tahay كهر مسلمك هدات كهر ويسي أنا جميح الشاطر ما نعبصده عضت كادي أردن أنت كجوران عضت كادي أتكو توك سنة يسي أردن أنت كجوران توك أتاي قيانار أتاي واحد اسكت هيدا إنا ما مليون دعدي ما مليون تمن جارنا ويكاه الرئيسة تمن جارنا ويكاه دم بيسا يا مركا مسلم كأمانها كاهلان أضيعه رفيانك رفيانة wadaadada kale oo masoo hadlaan hadaad wadaadta masaajidada markii la xiray waxa muslimka ku daba dhigaadi ya baabajey shalayto markuu sheekh Shantay masaajidka ka dhax sheegayay waan ku difaacayne laakiin runtii uma qalantid in lagu difaaco adiga iyo midan feeraha weyn ku ag fadhido iyo midan kale 24 saacun afka kala hayso saddexdiinuba waxaad u qalantaan waad mudantiin in wadanka la idinka musaafiriyo ama waa maxay ama wala idin xiro xabsi la idin dhigo maxaa yeelay waxa aad samaynaysaan waa fasahaad dadkii baad fasahaadinaysaan xitaa kama xishoonaysaan bisha ramadaan warin 24 saac gabdha ajnabi ka oo uusan qabin dhaxda ooga jiro maxay tahay baabajey hadii lagu la hadlo waxaad dhihi waxaana nin curyaan nin naafaan ah baad leedahay hada walaalo umada ma fasahaadin marka nin weyn baa tahay isku xishow allah ka baq waxani waa dambi waa ceeb niyow baabajey runtan ku sheegayay ilaahay ka baq oo waxaan jooji fasaadka ah weli waxba ay dhiman baabajey hadii lagu la hadlo oo lagu dhaho war walaalo waxani waa fasaad iska daa waxaad haysaa aniga waxaan ahay nin naafo ah ma shaqayni karo ilmaan ku korsadaa waxani horta walaale naafada ilaahay baa ka dhiga marka koowaad asagaana og xigmadda uu kala lahaa inuu naafo ka dhigo kaligaana ma ahane boqolaal ruux oo muslimiin ayaa naafo ah naafanimadana waxa weeyaan anigoo maanta 6 lixaad qaba barita ayaa naafo noqon karaa waa imtixaan ilaahay qofku imtixaamay waay laakiin walaalow laguma dhihin hadaad naafo tahay fasahaad samay umada fasahaad laguma dhihin adigoo YouTube soo gali kara adigoo TikTok soo gali kara adigoo Facebook soo gali kara ayaad haddana si akhlaaq leh ku soo gali kartaa wax xalaal aad ku raadsan kartaa laakiin naafo ahaye 3 gabdhood ama 4 gabdhood ama 2 gabdhood oo iga ah ajnabi ayaan bartanka u fadhiisanaya baan soo dhahaya haasi ma mid ilaahay kuugu talagalay ma aha waxa laga yaabaa haduu ilaahay 6 laxad ku siin lahaa waxaan wax ka sii daran inaad sameeyni lahayd ama wax ka wanaagsan inaad sameeyni lahayd Allahu a'lam laakiin waxaan ku sheegayaa walaale ilaahay baa naafo ka dhigay haddaad naafanimada ilaahay ka dhigay aad ku samirto oo aad ilaahay ku xamdido oo aad xumaan uga fogaato wallahi annaga waad naga rajo fiican tahay waayo ilaahay baa ku imtixaamay imtixaanka baad ku samirtay haddaad imtixaanka ku samirtana ilaahay janno kuugu bedelayaa laakiin laba mid isku darsan adiga iyo ilaahay ku imtixaamay iyo adiga iyo kibraayo ilaahay ma jecla dadka aan qiyaamaha naarta aan xitaa aan carafteeda helayno waxa kamid ah faqiir kibir badan ha noqonin marka faqiir kibir badan oo walaal waxaan lagu sheegay dadka halkooda dhigayso maxaa intaas oo ummad adiga ka soo dhax bixiyay subhanallah qof wuxuu isoo qoray gabadhan feeraha weyn maxaa u dhaysaa ana waxa idin le way feera weyn tahay aqli malahan xishood malahan horta balbalaarka xishoodka ilaahay baa ka qaaday dhulkii cirka inta isu jiraan buu xishoodka uu jiraa midan kale 4 ku haysa afka laqay war gabar qoslaysa 4 ka saac maxay tahay ayaduna waa xishooto kale way ana runtii sheegi maanta wallahi runtii sheegi dadka wax bay ka warwareegsan war xishoodayaal baa tihiin dambiiliyaal baa tihiin shayaatiin baa tihiin mufsidiin baa tihiin arladii baad fasaadinaysaan in arlada leedinka fiijiyo oo leedinka musaafiriyo sida ilaahay quraanku sheegayo ama xabsi leedin geeyo ayaad astaahishaan umada kala taga fasahaadka iyadoo bil ramadaan ay tahay baad waxaan sameeynaysaan ka warrama subhanallah waxa hata YouTube-ka idinka soo galay TikTok waa xaraan waxba kama jiro lacagta sida ku soo gashay baabajeew iyo furtu balbalaarka waa wada xaraan maxaan furtu balbalaarka wax kale iyaga dhigaysan islaam idoo live ku jirto idoo nin qabo baabajeey igali dhahayso soo ma aha idoo nin qabay rani anagu soonka anaga halaynina ma fahamteen nima xishooda dad run sheegaysan xishoo anagu runta idin sheegayna dadkan waxay dhegta caayb wax ku maqlaan
dadkan waana wax muku maqla qofkii waani weecayaan laakiin qofkii caayo toogeyso dhigaana xuriyad u leh anaa iskale sheekh ma tihid dadkii islaameeda madax iyo fiyuus ah ku raadaysaa sheekho baabajay ma ihi ani fartuuna ahaa sheekho adoo meel war wax ma afkeygana kama sheegi kar war sheekho ummadda islaamka ka leexa ka fadhiiso sheekh umul iyo sheekh kenyaawi iyo sheekhyo aan ogahay ma isku manaysaa sheekho sheekhyahaas meelay fadhiyaan oo edab ku fadhiyaan qof ma aflagaadeeyaan sheekho dadka social media ku jira maxaa kugu soo dire sheekhyow qofka aad taabatay waa fartuun wallahi bilaa xuniyaha inaa kaa goona sheekhyow iga leexo sheekhyow edab isyal wallahi bilaa ani ada waa isdileynaa war waa khaldanteeniyow iga leexo sheekh matiida sheekh beenaa tahay iga leexo sheekhow beenta ay iga faafinaysid iga dhaaf ilaahay ka baq bir ramadaana lagu jiraa sheekhow ilaahay ka cabso beedka ilaaha joogta aa ka soo caatimo xaq ilaahay ma ilaahay ka cabso sheekhow waxyaalaha qaldan iska dhaaf adaa wada qaldan